horta gaariga istaaran gaariga baqtiyo aan furaa ka rabo واي كاميرات قرصون بدنا adeegsatay imir saaran sawirkaygu ma muuqdo horta waxaan ku weydiinay sawirkaaga adigu soo xasameen maanta lacagtan dooradu baanta kamta ki doorar waxaad u galaysaa dadaal iyo juhdi iyo xabiibu gaariga kadib waxaan tagaynaa meel been deemin galaynaa qofna lacag weydiinaa lacagta la siinaa bari marka la waraa lacagtii konta ki doorar keen maxay Soomaalidu noqon weydo ku idhaaho waa kan taqaani horta dadku waa laba mid baahidi marka hore u qaatay waxa weeyaan uu baahayso oo ma bahayaba lacagtii midna waa mid isaga laftiisu intuu waxaan u qaatay sabab kuna xisaabtan inuu bari bixin karo lacagtu ku xisaabtana waay dadkan Soomaa marka kaasanada markuu helo buu bixinayaa haduu lacagta meel dhiganayo marka hore uu soo qaateen Soomaa haddii baahidi haysan buu ku kafeeyay lacagta halka ka soo baxsan marka waa lacala markuu lacag helo inuu iska bixiyo Soomaa laakiin af wanaagsan kula haduu yiraahdo walaal waan bixin doonaa waynagu adagtay Soomaa horta wax isku laashaa iyo afkumadu waa kala laba waxa weeyaan qofku markasta ama lacag kugu lahaado ama waxay kugu lahaane hadal wanaagsan buu ka mudan yahay Soomaa diiniyana hadalka wanaagsan waxa weeyaan waa sadaqo maadaama inuu marka dad musliman nahay waxa weeyaan xagga wanaaguna wax walba ka eego dadka qaar waxa uu fikiraanba waxa maskaxdooda ku jira un bayar rugana waxan bay sidaan sanad wuxuu garanaysaa duu hebel basan yahay mala taadadu sameyn laad buu sameynayaayo inuu taasina waa khalad sababta qofka kale urkiisa aad ma ogi maxaad oran lahayd qofka bilaadanka maanta daawashada YouTube ka arka maxaad oran lahayd deynta ma iska bixi ma aqaadanin maxaad oran lahayd la hadal dadka horta kuleeyaan in badan oo baahi ay haysaa way jirtaa oo aan ka maarmaynin in lacag qaataan laakiin baahidooda markay gaadhaan waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay iska ilaawaan lacagta kuwa iyaga fariin gaar ah u diray waxaan leeyahay ilaawinay walaaltinimadii wanaaggeedii ku siiyay lacagtii ku soo celiya kaysagu tiisi oo meel taala tu kala soo amahanayana waxaan leeyahay walaal soo amahanay taada isticmaal horta bayu dabakuru Soomaali diinta waa lagu karilay run midon Ahmed Soomaali diin waa laga karilay horta inaga daa xamar lacag baa taalo oo albaas xaleeyada xamar dagaal baa yeelay dagaal iyo lacag baa taalo musuq buu yeelay oo meel jabada la sidee hargeysin ka hadlayna hargeysina waxay xirantay afartii taajiriinta ay lacag talaha ninka salaam ku siinaya hargeysan maanta ninka business ka furanaya uu ku baay haduu konton kun ama 30 kun ama 40 kun ama 10 kun dollar haysto buu meherad turka meherad weyn oo dhameystiran oo qooflano sameeyso ka soconaysa hadda laakiin istiraado imka tusaale ku siinay baxsana iyo dadkii taajiriin hargeysan dadkay maxay ka bilaabeen jeeb loo sigaar waxay hadeystay bobayda talaabadii koowaad nolosha laga bilaabay Soomaa tan maanta hadda istiraado ka yar cooshada halka golada jitiyeer dhigo maxay ka faa'iideysaa waxbaadee way ka caysarnay horta waxa weeyaan khayro taasi waa fikirkaaga waxa weeyaan qofka bini'aadamkii arsaaqada isaga ayaa iska wato qof walba tiisa gurigana sideen ognahay xagga sare laga yimaado seeska oo laga soo bilaabo oo dhulka macal loo jeexo mar dad ganacsi bilaabay sanada inaad xagga sare kaga timaado waxa muhiimsan inaad meel hoose base hoose ka soo bilowdo oo base hoose ka soo dhisto xagga kicitaanka iyadoo waa qadar biyo qof noo ka caawin qof noo faa'iido marka aan waxaan leeyahay dadka waxba xagga hanti waaweyn iyo isku siiyeen taxalujin lacag aad u waaweyn mid walba waxa haysato wax ku qabsan leh marka waxa laga yaabaa mid yaro fiican haystay inuu iskaga hamiyo lacag